waxa la iga cayn jiray beejaj fara badan oo ayadu ay leedahay gabadhan la iga caay jiray oo gadaal aan ka ogaan doono in ayada leedahay waxa kamid ahaa waxa kamid farxiyo kabayro official la dhaho oo wiil in adeerkeeda oo mursada uu gacanta ugu hayo oo si toos ah aniga la iiga soo caay waxyaabaan ahayn la igu sheego oo been la iiga sheego ayada iskale waayo anigii ayada anagoo isla joogno ayaan aniga ayada isla ma hadli jirin bilkan isla deganayn waxa waaye marka magaaladan imid xalfada la ii dhigay xalfada markii la ii dhigay waa is aragnay waxaan isku aragnay sarta dheer oo symbol elevatorkeed waxaan ku yiri habar yar xalfad welcome la ii dhigay magaalada imid siba kuugu jir xumeynaysa la hadlin sidii aan isaga daay aniga ayadu isma wacan jirin isla mana hadli jirin waa marka magaalada imid gabadhi saan sidii uu ahayn waa dhexdaas isku soo dardarsanay beejkii caaydi waa la iga joojiyay markaan ayada ka haro oo qof kale la saaxiiba caayda la igu bilaaba markii dambe maskaxdeeda ka shaqaysiiyay waa jidkaasna fanaaniin fara badan oo Soomaaliyada laga soo caaya oo gabdho badan ay ku jiraan waa iska daay anoo sidii ah sheekadan waxa soo baxday Naciimo Uuray leedahay wacal bay riman tahay waa dhilo sharmuuto waaya waxa Naciimo guri kama baxay meel xun ma istaagtid dadka wareega ma tiid naagaha raac ma tiid meel xun ma tagtid meel ugu qayilay ma tagtid ciyaal suuq ma raacid maxay tahay ceebtan iyo waxaan laga daboodo oo Facebook intaas la soo gelinay yaa waxaan ka dambeeyay adi finally sheekadii aan baaray Yurubaan la xiriiray qarash badan aan galiyay waxaan soo ogaaday gabadhan wiilkan kacab la dhahay iyo dhalinyarta meesha ku jirta inay gabadhan ka dambayso oo igu soo dirtay gabadhiina saaxiibana si aan ugu sheegan garan waay adiga waa mana qabsan waa isaga aamusay waa dhexdaan hadana darisa ahayn way ii imaatay waa heshiinay oo Kenya ahayn Snapchat-ka xataa la soo galgali jiray inaan aragteen in kala ma aqaanay ayadoo anagoo okay isku ah baan siidaran nacay waxaan ir xaafadan waa isaga guuraa waa ka soo guuray siidar waxaan soo degay guryaha hadda aan deganahay 2021 February siidar ka soo guuray kowdeedii furaha waxa la siiyay 28 January February 1st gurigaan soo degay gurigaan marka aan soo degay maalmaha qays isbaranay ahayd bas qays aan isbaranay laakiin ayadu ma ogeyn because ani waxaan ahay dadka sheekadooda iyo dheydkooda wixii haday serious ahayn anu dadka inaan la share garay ma jecli markaasna de qof aan isku cusubno ahaa qays ma u sheegin baayada waana soo kala dheeraano dad markaas isku dhawo darisamaana ahayn adiga xaafadan xoogaa markaan deganaa February March April May April horta waa baxay Seattle aaday waa soo noqday May hadana Seattle isaga daba noqday aaday May June kowdeedii aan waxaan isku dhacnay wiilkan daahir cala soo la dhahayo oo wariyaha ah oo social media soo gala baa isku dhacnay markaan isku dhacnay dagaalka si u socday horta maalin accidentigu koowaad wuxuu ahaa first accident aniga ku dhaco idin sheeka accidentigu koowaad oo aniga iyada nagu kala dhaco horta wuxuu ahaa waxay jeceshahay wiil aan isku dhacnay wiil oo dhalinyarta wax la dhigi jirtay ah wiilkii marka way oroday anagoo heshiiso caadi isla qosolna sawirkiisa soo dhigatay bas waa intay baxday oo gurigeeda ka baxday bay ka amar la soo gasho waxay la soo duubtay Snapchat bas gurigeeda igu timi hebelaan is aragnay way igu kor wada waxaan ku yiro anigi qofkaas waa isku dhacnay waana isku dhacsanahay barnaamijyada in moor islama dhigno marka aday ku taala waa idin dhexgalaayay waxbuu ka tabanaya waxbaha aniga hana dhexgelinaan ku dhahay aniga qofkaas heshiiskiisana ma rabee habareere macaani hore aan uga socon arintaas sidii iga amustay haddana waxaan isku dhacnay gabadhan hani la dhahayo oo hani sharaf aan isku dhacnay hani sharaf marka isku dhacnay aniga hani sharaf hadda waxba naga dhaxeeyaan dad kuula oo caadi aan nahay laakiin hani sharaf iyo aniga isku dhacsaneen hani sharaf sawirkeeda ayadii walaasheed bad Snapchat-kooda soo dhigteen ayadoo ordaysay soo wacday habar haye waxaan ku yiri inaan weydiiyo rabtaa mogto waxba ma weydiin ka sacabaar ka tiri gabar oo xamar joogta aan shaarad u soo sameeyay ma aragtay waa shiba isaga dhahay haddana hadal kale igu soo celisay shiba isaga dhahay waa dareema gabadha inay fidna rabto waxaan ku yiri haye waa sii seexanay nabaday sidii uga tagay habeenay ahayd adi anagoo sheekada intaas marayso ayaa sheekada hadday ku iimaanay marka June 1st waxaan isku dhacnay daahir calaso ninka suxufiga iyo aniga laba qof oo social media caan ka ahayn ayad gabar caan waaye oo fanaanad ah waa isku dhacnani asaga marka isku dhacnay umada kale oo magaalada joogta dhan caadi ahaayeen gabadha ayada ordaysay soo wacday kama qaban telefoon mar labaad ay soo wacday kama qabanin waxay soo kaxaysatay
ilaahay baa igu og inaana been sheegin oo wallaahi oo bilaahi oo talaahi tu alif teedi habeenimo anoo gurigayga dhex fadhiyo oo waliba maxaa sameynay matimaha shalnaysana anoo macnaha si haysatay 4 wiila isnaqaano iyo ayadii iridda gurigayga soo garaacay gaaw ilaahay baan ku dhaartay waxa mooysa booliis waa ka fura waxay tiri habar maanta dhana ku soo wicin maxaa noogu cabeysay waxaan ku yiri biisiya ahaa waxay u socotay inay kaamarada iga duubato waa soo fariistay barsadii soo fariisteen ma sha Allah tabarakallah waa soo dhaweeyay aan qof guriga kuugu imaado waliga lama xumay dabeecada ani aqaano waxa way haddan anago anaan xiriirkan u fiicnayn haduu qofka iridii ku soo garaaco daasid waxaan u qabo waa iloobaya qofkaas gurigaygu iigu yimid sharaf ka weyn ma jirto soo dhaweynaa saasa aqaan aniga dhaqanka la igu soo koriyay iridan ka furay soo dhawaadaan dhahay way fariisato waxay ugu tiri adigii daahir calasow arintiin ina soo gabagabeeyaan rabaa fiideo raali gelin ah ina u duubtidna waa rabaa ee waa ka duubayay is diyaari kaamaradan waxaan ku yiri ani horta kaamarada diyaari kaamaradan waxaan ku yiri ani horta kaamaradiga ma duubeys aniga ninkaasna sheekadeenu waxay noqotay durugta ceebtii dagaalku cidkaas iyo caadaas isku shareeray oo maanta ma taagna niciimo ma taagna wuxuu taagan yahay rag because rag wuxuu u taagan yahay aniga markii liicay tolla ayay yaa Soomaaliya ma dhin tolla ayaa daaroodan dhahay marka qabiil wadaama ani arabka aan ku dhuftay gabarna aan ahay sheekada way fogaatay reebtiga soo gal reeadeerkay soo galay tolweyn oo dhanaa soo galay wixii qaraaba aan ahayn daarood iyo hawi isaaq dagaalkaas looma kala harin marka maanta inaan aniga aan hadana inta luqluq ka baxo adiga inta ii imaatay orgiyo video iga duubatid lama heshiinayaan ku dhahay way baxday inay iga aqli badan tahay mooday arin ileen naagta markii ii socotay Facebook-geeda post soo dhigtay ee leedahay Niciimo Joker u socda arintan soo dhameynaya raali gelin bixinay marka raali gelinta ka diideen post soo dhigtay ee leedahay aniga dhexdooda waa ka baxay ninkii naagta postigi dambe ana waa ka soo jawaabay postigi waxaan soo qoray aniga waxa gabadhaas iyo waxa ii imaaday dad badan oo aan aqaano oo magacyadooda aan meeshan ka sheegaynin waxayna iigu imaadeen nabadeyn anigana waa ku gacan saaray nabadii ana diiday ma qarin waan cadeeyay aniga naag hadalkeeda la gabatan mi gabadhan yaani khilaafkeena meesha ka soo bilawday waxay ilkaas ugu marsiyoon aan sheega mugta saasan ku qaltagan waxa la rabay farxiyo inay iska aamusto maysan sameyn sheekooyin badan way soo baxeen dad badan oo isoo aflagaaday social media in ayadu igu soo dirtay la soo ogaaday oo ana magacyadooda hadda sheegeen because ani ay weeshiinay dadka daashiisana lama sii daba dhigto anu ma ihi dadka ma aragtay meed garaac yaqaan ma marka waxa dhacday habeenkii dambe labaad daahir calasow sawirkiisa soo dhigatay waxay soo dhigatay Facebook-geeda waxay soo dhigtay Ayub Carlo iyo caynay sawirkiisa iyo daahir calasow soo dhigatay waan arkay waxay soo dhigtay jugta culus kalmad jugta culus oo daahir calasow iyo aniga dad saacay wax walba isku caynayni kalmadaas ka soo dhex baxsatay jirtay 4 daqiiqo way ka saartay waa haya screenshot-kii bas aniga halgay marka arkay shiba isaga dhahay ani screenshot-ka xataa kama soo qaadin gabdho badan fareena soo waca mursada oo ay isnaqaano Yaasmiin Caraale kamid tahay anoo karbaashay waxa la igu yiri Niciimo Joker gabadhaas faraha ka qaad okay bambe iga sheegtay Facebook live soo gashay waxay tiri ogaadeen waxa la iga raali ahaado saan waaye ayadii midha khilaafaad kale to qabiil ka dhaxeeyay ay xalinaysay ma dhihin maxaa u xalinaysaa iyo maana ay haysataa because aniga imaba qosayso ayadii ogaadeen wixii ka dhaxeeyay because anu ogaadeen meehiya ma jeerteen ba ah barasho wanaagsan saaxiib marka ogaadeen bay u la garamaysay soo anigana ma dhaxgalina gabadhaas ogaadeen kala garamaysa aniga ogaadeen de afhayeen u meehiyo ayadii baa la hadlaysa moogta shiba isaga dhahay indhaha ka daawanay waxay samaysay video dhaga hadala oo aniga macnaha ogaadeen ay igu xaqlinayso bay waxay soo dhigtay Facebook-ga sidan ay hadal tiri Niciimo Joker caadi uma dhahaysan laakiin aniga iga wadaay niman baa la igu soo diray naag baa igu soo dirtay Mareykan joogta oo tiri hala dilo farxiyo Nairobi anigana nimanka waa ila soo hadleen sirtaadi way fashilantay horta runta haddaan ka hadlo inkastoo de bini aadan uusan qancaynin haddana wallaahi oo bilaahi oo tallaahi Nairobi qof aan toos iskula hadalno ama personal aan u aqaano ama amaanta aqoon u leeyahay waxa ka joogta gabar Leila Bashiir la dhaho habareer aan u ah ayaduna ay ilma habreed yihiin
qof kale oo bini aadan oo maanta aan kala xiriiray leylana waa ogtahay hal qof oo bini aadan oo maanta aan ka aqoon Nairobi dadku dushaas unba iga yaqaana aan dushaas ka aqaana iska jecelnahay laakiin qof aan caadi isku naqaano caadi isku wacna Leyla ka jirta dad badan oo taageera jooga Nairobi inay arkaan jecel oo aan isbarano laakiin Ilaahay caafimaad ha nagu wada gaarsiiyo laakiin qof aan isnaqaano maanta ma jiro ilaa isbarano Kenya kul xal way igu soo dhaga hadashay way ila soo dhaga hadashay shiba isaga dhahay way baxday sawirada daahir cali soo dhiganaysa dib ma laha dadku way soo dhigan karaan sawiradooda laba qof haday isdagaalaan dadku way kala jabi karaan big deal ma aha inkastoo aniga ayadu aan dad saas close very close aan ahayn oo dad laakiin saaxiib waligeed ma noqon laakiin waxa ahayn dad is yaqaan oo close kaas isku baabna ma ahayn isku balwadna ma ahayn isku jaanqaadna ma ahayn marka dad isku saaxiiba ah oo israaraaca aniga ayadoo meel kasta isla tagay ma ahayn laakiin dad is yaqaan ahayn oo dariskana xaq u leeyahay xaq dariskana waa dhowri jiray because afkayga iyo adinkayga way ka nabadgeli jirtay gabadhaas afaareeda kama hadli jirin waan taageeri jiray hees cusub haday soo saarto waa soo saari jiray snaapkayga dad xushmad ka dhaxaysa ahayn ayadoo intaas oo xumaana marayso oo aan isleeyahay gabadha maxaa ka qaldan ba message loo qoray gabadhan message-ka marka Soomaaliyo dhan ba af Soomaaliga isticmaasha Soomaaliyo dhan ba ay isku si oo wada hadasha dadku kala luuqad ma aha laakiin gacmaha aan taleefankayga ku hayo iyo carabka aan ku hadlaayo Ilaahay kansar ha iga geliyaan ku dhahay inaan message-kaas qorin waxna ka ogeyn message lagu caynaya loo qoray way baxday message-kii screenshot ka qaaday gabar bay u dirtay wiil u dirtay way iga dacwad waxay tiri Niciimo Joker ba text message ugu soo cayday waxa iri wiilkii ay u dacwotay soo wuxuu yiri Niciimo message gabadhan ku cayday waxa iri wallahi oo billaah oo tallahi aniga ayada xumaan ee ayada ii qabin ani uma qaba gabadhan ayada daraamo maanta oo dhan igu wada laakiin gabadhan xumaan uma qabo message-na uma qorin mana arag ma maanta oo dhan igu wada laakiin gabadhan xumaan uma qabo message-na uma qorin mana arag markaas waa la waxa li waa gabadhu waxay tiri message uma soo qorin waxay ku jawaabtay hadalkeeda iyo qoraalkeeda aqaana waa qoraalkeedii waayaba gabadha cadaawad intaas leego Kenya askar ay ugu soo dirtay message ii soo qortay gabadh maxay soo wad gabadha la aroosay gabadhan sharaf waan isku dhacsanayn oo dadkii waxay ku jirtay daahir cali soo hiiliyay anaga hore isugu dhacsanay hadan dagaalka dhinacan iiga soo qaaday reason la'aan okay dib ma laha aniga marka waxay samaysay gabadha arooskeeda snaapkeeda soo galgalinaysay big deal ma qofku aroos waa soo galin karaa anu 100 gabdhood baa maalin soo galiya wax weyn ma aha hees bay u soo qaaday ma sha Allah tabarakallah aroosad qofku markuu guursado hees giftay qof walaalkiisa ama saaxiibkiisa uu ka heli karaa wax weyn ma aha maanta oo dhan message ii soo dirtaa luuqal igu soo diraa Niciimo Joker maxay tiri maxay maalin dambeeto Ilaahay amarkiis gabadhan ayadoo intaas oo qalad iga gashay oo maanta dhan iga dacwoonayso oo anoo waxba ka sameey inta ay daba socota ba habeen anoo xaafadiska joogo wiil Yurub jooga ayaa wuxuu yiri qofka saaxiibka moodayso saaxiibka ma aha WhatsApp kale igu soo qoray qofka muxuu ka wadaa saaxiibkee wala saaxiibba ma lihi naagta saaxiibka la tahay orgiyo ka wadaa maxaysan saaxiibta ku ahayn gabadhaas ayaa waxay ii soo dirtay ma gabadhaas codkeeda ma aragtay iyo message-da la ii soo diray qoraaladeeda qoraalada maxay yihiin qoraalada address-kaaga iyo wallahi qoraal ii soo qoray Niciimo Joker soo cay sidaan dheh waxa ku caydaa gabadheeda halkaas joogta wadankaas ay keentay iskuul ka dhigata boarding school hooyadeed gaalkacay degantahay maxaa sacad ma degana miyaa gaalkacyo maamada waxa la dhahay magacaas xaafadaas degantahay Niciimo Joker green card haysta passport ma haysato sharci weyn ma haysato Mareykanka sharci la'aan waay dis waaye ku soo cay saandhe masajid daahir cali soo qortay waay marka wixii oo dhan oo screenshot garaysan wallahi qofkaas ma aqaan iyo billahi inaan aqoon iyo tollaa inaan aqoon hadii maanta bistoolada uu qabtana ma aqaan laakiin masajiddaas oo dhan la soo qoray wixii oo dhan inbox-ka la soo galiyay ma seexan waaga igu bariyay subaxdii waxaan soo qoray saaxiib naageed faa'iido ma leh daris ahaada ehel ahaada walaalo ahaada 20 sano isaqood 17 sano isaqood waji ma laha gabadhan marka aniga ilka casana ma igala qaadin meeshaas ilka cas markaan isguursanayno waxay ahayd June 16 markaan isguursanayno nooma soo hambaliyeen dad badan ay fariin soo fartay oo igu caydoo tiri arooska waa baraanki
واسان بخ 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 ayadoo caytamaysa la ii sheegay dhowr jeer aniga qayso wada fadhina waa naloo sheegaa intaas arooska waa baraanki waa dad taraasha saar aniga qayso wada fadhina waa naloo sheegaa intaas arooska waa baraanki waa dad taraasha saan waaye Naciimo waa saan xataa nina shukaansan jiray waxaas ayadoo korkayga saarso dhayso ninkaas qabi jiray intay ka baxday waa arkay waa dhageystay dhegtaana ka bixiyay maalinta dambe ay umbe waxay samaysay hadallo badan Naciimo alaabta ii dhaqi jirtay oo cuntada ii karin jirtay goormay aniga iga kibirtay oo aniga ay afka igu soo taagtay marka 150 cay teeda kale tacaydan kaleeto oo ay leedahay gabadhayda ingiriiska hadda koor ayadoo joogto gabadhayda cayday waa la ii soo sheegay gabadhayda waliba markaas waxay ahayd 13 jir ahayd markay gabadhayda aflagaadeysay markii aflagaadeysay gabadhayda oo saqiir ah waa la ii soo sheegay because gabdhaha la fadhiyo anagii ayada sida ogtiin isku xaafadan ku dhalanay gabdha reer Bakaare ahaayeen waliba ayadoo been sheegayso dhayso Naciimo gabadheeda ayay waa sheekadan aan qashin xataa suuqa gabadheedo yar oo 13 jir naagta suuqa galisa way Naciimo gabadheeda waa naag weyn waa la qaba ciyaal ay leedahay hooda hooyo tahay oo ilmahayga la aflagaaday ku doodaysid hadda waxa joogto gabdhii ingiriiska u tagtay marqaati maragma doonto waana soo fariisin karaaye xagee aaday oo gabadheeda ah ku cayday ilmo yar oo saqiira oo 13 years old waagaas ahaa waa hore way 70 curcur qamiis kala haad ah ayaad soo cayday gabadheeda hadda waa naag weyn iska ka celin kartay intaas oo qalad ah iga gashay marka ani hadda ku soo karbaashay marka maadaama waxaan dhahay abba helay heblaaya ismaagteen heblaaya xambaarsan tahay hebla ismaagteen hebel xambaarsan tahay hebel kala ismaagteen hebelkii kala xambaarsan tahay ana maxay ii diiday marka aniga go'aanan gaaray marka qof kasta isku dhacdaan aan qayd laba yaardiyaan soo gadanaya waa xambaarsanaya marka xambaarka qofkii labadeena culays ku dhibaan arkaynaa aduna qof allaale qofkii teeda kale qabyaalad bal fiiriya nin hiraaba adigana karan la tahay curadka hawiya tahay asaguna waa nin hiraaba waa isku hiilin kartaan Soomaa marka isku hiiliye muxme wax aga cadayso oo waxay dhahdaa habaryar ninka is haysataan waa ina adeerkay waana u hiilinayaa habaryarnimo bul Allah siiyo anu ma jarteen ma qoraydhe waa ka yeelaya laakiin aniga igu soo marsiyo Naciimo ilkaas u hiilina ilkaas aad maxaa isku haysataan ilkaas adiga 2016 is dagaashan 2021 lagu jira come on wake up waa hore ahayd long time kale dadkan ku waashay Naciimo macnaha ma la cishto iyo Naciimo ninkeeda mu cishto saaxiib runta ku sheegaa de aniga ana isku nool cidna uma nooli hadda koorna waa sheegay anu markaa hadlay nobody can shut me up nobody afkayga waliba especially markii liiga gardaraya oo sidaan oo kale intaas oo sano aan dul sheegay anu markaa hadlay nobody can shut me up nobody afkayga waliba especially markii liiga gardaraya oo sidaan oo kale intaas oo sano aan dul qaadanay li daba socday oo intaas oo sano been ay iga sheegayso suuqa iigu jirtay saaxiib ani cidii ka celin kartaa iska huud yaa caan niya shalay isguursanay wala kuwa aniga ilma adeertay dad igu sokay wala kuwa ani ila dhasho isku hooyo isku abada siidar building kula degan Allah ka dhigay nobody iga ka celin kara male adaa igar daraystay adaa rabbiga rasaas ka bariye ku raaxaysa riinka kaaraha kuma daynay ana hadda ku dhahay war hadii qaarka dambe la iga jaraan ku dhahay qaarkayga hore aniga kugu raab garaynay that's what I decided ani mid kaliyaan kugu dayn kara halka midna waxay tahay ina qirato ina iga gardaran tahay ina qirato ina idhibaataysay ina qirato ina sumcadayda ku ciyaartay ina qirato ina suuq aad iigu jirtay intaas oo sano ina qirato intii WhatsApp oo waaga Hodan Cabdiraxmaan isku dhacdeena laga caay jiray waaga farxii fiska isku dhacdeena laga caay jiray nasteexayndana laga caay jiray ana la iga caay jiray ina website kaas adiga leedahay oo aniga dhagahayga aan kugu maqlay adoo ila fadhiya intaad wacday oo aad tiri walaalo kada la iga daayacaydi ani kula fadhiyo oo wallahi carabkaaga qoyan kuma hadlay iyo billahi iyo tallaahi waa tan meeshan jiif ilaahay nabad iga kicinin farxiyo waa kula fadhiyay habeenkii inta wacday aad ku dhahaysan Naciimada ina leedahay maalintaas riyaas garay hodan waxa laga caynay dhowr sano oo nasteexa laga caynay oo waxa laga caynay farxiifiska inta gabar fanaan oo sharaf leh oo dhibaato loogu geystay website kaas ma sawicin oo website page leh ma jiro
kulli adminay uga tahay hebelow inta wiila aqaano war xataa website-yada waaweyn oo dadka laga caayo wallaahi qaraaxo iyo qarxis hebelow waxay wacaysa hadaa aragtid wallaahi oo bilaahi oo tolo ma malaysan kartid naagtaas intay fidno wado waa munaafiq dadka hoosay ka gurtaa markaasay say 7 habeen u qayilayso markuu darbiga ku soo socdo marqaan ayadoo labada indhood xabadiiba gacantayda fistigeeda marka saas loo laabay intaas ay la eg tahay ee intay soo fariisato Facebook gabdho islaameed oo yar ay caynaysa ayadana afkeeda iyo labadeeda afba ma kontaroosho markaasay gabdho yar oo masaakiin waxay ka caynaysaa Facebook waxay leeyahay Hiblaya isqaawisa Hiblaya inta ka baxday Hiblaya kaalisay adigina waa dayacan tahay teeda kale waxa tiri hal igu fasaxo waa lagu soo fasaxay bal cida ka af Soomaali badanta ama ka xoog badanta magaalada isla joognaade iyo groupkaaga yar oo corcor kala samaysatay waxaan ku sheegayaa af Soomaali haday noqotana Ilaah baan ku dhaartay kulli meel idin ku saaraya adigii groupkaagaba I don't care no guy inta ka baxday Hiblaya kaalisay adigina waa dayacan tahay teeda kale waxa tiri hal igu fasaxo waa lagu soo fasaxay bal cida ka af Soomaali badanta ama ka xoog badanta magaalada isla joognaade iyo groupkaaga yar oo corcor kala samaysatay waxaan ku sheegayaa af Soomaali haday noqotana Ilaah baan ku dhaartay kulli meel idin ku saaraya adigii groupkaagaba I don't care nobody aan ka baqamal Ilaahay baan ka baqaa haday gacan noqotana wal isiyaqaanaade darqwaani adiga shalay isma baran shalay maanta isma baran 2020 2019 isma baran you know me I know you you see me I see you my friend si fiican ay taqaana meel dhow targetkan kugu arkay laba naag oo Soomaalida dhex taagneed 10 minute been kuma sheegay 10 minute aan banaan ku sugay waa soo bixi weys you know what ani adiga is on aan ku iraabay haday noqoto aragtina waa inoo aragti haday noqoto afna I'm here for you dhinac walba attack hada igu sameeyay if you attack me I will protect myself okay saasa noo balan ani adiga bayna naagti xoog badata meesha u areys ilaa intii wax been iga faafisa beentay way dhahay oo iraali gelisidna kuma deynay ani taas balan iyo axdi aan nafteeda ka qaada way inaan meel iska ka saaro ilaa intii wax been iga faafisa beentay way dhahay oo iraali gelisidna kuma deynay ani taas balan iyo axdi aan nafteeda ka qaada way inaan meel iska ka saaro ilaa intii wax been iga faafisa aniga waa taqaaniin Soomaaliyeed qabiil kastaatiin toosa idin la hadla ani dad badana isku dhacnay waxaan isku dhacnay Hani Sharaf waxaan isku dhacnay Daahir waxaan isku dhacnay Filis Wacwac waxaan isku dhacnay meeq qof isku dhacnay nasteexa hatta waa isku dhacnay oo inaadeerteed dad igu sokaysa wallaahi oo bilaahi oo tallaahi qof aan caaw cuqdad ugu seexanay ama xumaan u qabo ma jiro laakiin gabadhaas uma maleynay Ilaahay waxaan ka baryayaa iimaan saadiqa iyo qalbi fiican inuu isiyo gabadhaas si kasta aan yeelay waa cafin waaye sababtan waxa keenayso wallahi wax maskaxdeed ka weynaatay noqoto markii masajida la isoo dir wax walba isoo diray why you hate me that much and why you attacking me that much why intaas xaasidnimada intaas la eg oo kugu kaliftay inaad dad igu dirto oo message qorto why what did I ever do to you habar yar macaan inaan ku dhashaha ku keeno fadhiga kuugu soo adeeg marka ay yimaad mooga haafay ever disrespect gudoomiyaha fanka anoo habeen barkan la soo jeedo Soomaa inaan gudoomiyaha fadarada fanka aan qabto waxay taagan tahay gabar halkaan qosolka iga dhameysay iyada hurdada iga qaada la dhib badan Soomaali committee qosol mino kute walaalo ayadu ma boolis baa mise waa fanaan maxaa labadii qof is qabataba dhex dhigay ma boolis baa waa wax su'aasha ay isweydiinayno aan rabno inaan fadarada fanka ka qaban Soomaa arinta fadaradii fanka ayadaada haddaan wax yar kaaga sii taabta maadaama aan seexanayo naagta ugu horeysay ayadoo nin ku dhagdhagaysa hees qaado horta adu ah oo Soomaaliya waxaad fadara cid kale ugu caayin ma fahantay oo ayadoo tuur leh teeda kale secondly naagta ugu horeysay oo jeegada ayadoo u xiiranta soo hees Soomaaliya adu aha yaa fadaranimo ku caayinay marka fadarada fanka adaa ka ah fadarada fanka adaa zadka ah ABC ila zada tahay fadarada fanka last name ka fadarada fanka waa adiga suma soo fariisanayso dabeecadeeda aqaana naagtaas dadna ma fiis garayso dadka waxay jeceshahay qof lagu dhagan yahay oo tabar lahayn la inay dadku u soo dhexdhoomatay jeceshahay qof kaligiis taagan ma soo aado
ayada adoo gacmo banaan oo caadi iska qoslay hadaa soo aadi kuma soo aadayso ku qoslay mar allaal markay aragto in lagugu dhagan yahay dhabarka tumay dabeecadaas leedahay ayada hadda toos ima soo aadayso dadkii cayayaanka iyo qashinka iyo taraashka iska soo hormarin jirto dhan ay wacaysaa caaw ma seexanayso jiif uma yal caaw alla yaa wajigeeda 100 telefoon diray 100 qof ay ku soo diraysaa laakiin cayayaankaaga ani uma jawaabayo ani adiga waxaan rabaa wajigaaga runta inaan Soomaali tuso munaafiqnimadaada iyo qabyaalada ka buuxda iyo naceebka reebtiga u qabtid iyo cudurka ku dilooday iyo wax caloosha ka fadhiya adi dad badan ogahay reebti loo yahay ina umada tusaan rabaa iyo sababta ay ugu daba socotid iyo ula jeedadeeda iyo meesha sheekadaada xumaantaad ka soo bilaabatay iyo how ay calool marid